Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan meel walba aad joogtaan anigoo ah Cabdicasiis Cali. Muuqaalkan waxaan ka hadli doonaa gameka Players Unknown Battleground oo loo yaqaano PUBG ama sida Soomaalida u taqaano PUBG. PUBG waxaa la soo saaray sanadkii 2017 wuxuuna soo caanbaxay 2018. Company oo loo yaqaano Blue Hole ayaa gamekan develop gareysay oo lagu isticmaalo mobilada iyo qof walba oo isticmaali karo meel walba uu joogo. Haatan waxaan ognahay 200 milyan ayaa isticmaalaan adduunka oo idil. Isticmaal kaliya kuma ekee lacagna way ku bixiyaan. Sidaan ognahay wax walba adduunka la soo saaro faa'iido iyo faa'iido daro ayuu leeyahay. Laakiin gamekan waxaa kaliya faa'iido ku qabo dadka gameka soo saaray. Faa'iido darana waxay u tahay dadka maanta lacag iyo waqti kulmiya gameka. Intaas markaan ka gudubno shirkadda markay dadka maskaxda ay ka qabsatay iyo lacag badan ay ka qabatay update-kan ayay la soo baxday oo la yaab ka leh ila daawo muuqaalkan. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صدق الله العظيم. sidaad aragtaan Playerska wuxuu hor istaagaya sanam asagoonan caabudin ma qaadan karo hub mana u gudbi karo marxalad cusub. taasna waa shirki oo inoo muuqdo iyo la dagaalan diinta islaamka. update-kan kadib culimo badan ayaa isugu raacay inuu gameka xaraamiya maadaama shirki wax lamid ah lagu arkay. sida ogeeda wadamo badan oo isugu jira wadamo carbeed iyo islaami ah waxayna ku dhawaaqeen inay gameka wadankooda ka mamnuuci doonaan. sidaas ogeeda shirkaddu waxay bartooda Twitter kusoo qoreen raaligelin maalmo ka hor ayna ka raaligelinayaan wadamada carbeed iyo wadamada islaamiga ah inay falkaas dambe u laabanaynin oo update cusub ay soo saari doonaan aanu ku jirin wax sanam iyo wax lamid ah. laakiin sidaan ognahay gaalada mar walba waxay la dagaalayaan islaamka iyo diinta islaamka ay u bedeli lahaayeen ama dhalinyarta dhaqankooda u bedeli lahaayeen. tan hadday ka gudbeen mid kale iyo ma waxyaabo lamid ah ayay mustaqbalka kusoo dari doonaan. taasna waa huwaal. marka dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan kala dardaarmaa inay gamekan iyo game lamid ah joojiyaan intaysan qabsan ahidan inama kunna naquudu wa nalcab.